الله محله وما أنت صورة قرية إن كسر وتقيب قلنا ولما دي Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dadka runtii indhagarad ku ah indhaha u ah ummadda Soomaaliyeed hadday ka yimaadeen dibadda iyo gudahaba iyo dowladooda inay maanta goobjoog ka wada yihiin shirweynahan oo ah sanadkii ugu horeeyay oo magaalada muqdisho lagu qabto waxaan rajeynayaa insha Allah sanad walba inay noo noqoto aad noo noqoto oo intaan uu ka sii ballaarto hadduu ay yiraahdo xaqiiqatan shirweynahan maanta dowladda iyo culimadu ay goobjoog ka yihiin ay soo wada qaban qaabiyeen ay ka wada shaqeeyeen macnaheedu waxay tahay in la gaaray waqtigii culimada Soomaaliyeed ay qaadan lahaayeen kaalintoodii sax ahayd iyagoo midaysan waa ku faraxsanahay inaan arko maanta culimadeennii oo midaysan iyo dowladdoodii oo wada shaqayn toos leh mawduuca laga hadlayo 3 bil soo socotana ay tahay culimada Soomaaliyeed iyo dowladdu inay lahaadaan wada shaqayn ay ka wada shaqeeyaan arrimaha amniga arrimaha dib u heshiisiinta tan labaad inaan ka hadalno maxaan ku yiraahdaa xagjirnimada iyo sidii looga hortagi lahaa ama sidii loola dagaali lahaa xaqiiqatan xagjirnimadu annagu waxay noo geysatay dhibaatooyin aad u waaweyn ay ugu horeyso inay la dagaalamaan xagjirka oo annagu aan dhahnaa argixisada dowladnimadana inay la dagaalaan ay cadow ku yihiin inay cadow ku yihiin shacabkeenna iyo dadkeenna ay cadow ku yihiin inay cadow ku yihiin diinteenna suuban ay cadow ku yihiin inay cadow ku yihiin quruxdii iyo sharafkii dalkeena uu lahaan jiray ay cadow ku yihiin sidaas darteed waxaa weeye in culimmadu Soomaaliyeed oo midaysan ay 3 bil soo socota ay uga hadlaan sidii loo cadowgaas ummadda Soomaaliyeed looga qaban lahaa iyo wada shaqayn buuxda culimmada Soomaaliyeed iyo dowladdu ay u lahaan lahaayeen waxaan rabaa inaan idiin sharxo oo warbixin yar ka siiyo waxa aan ka wada shaqeynayno iyo caqabadaha na haysta waxaa laga yaabaa qof walba inuu soo arko laakiin iyadoo dhab ah waxay tahay waad la socotaan qaraxyada iyo burburka ay geysanayaan qolooyinkan xagjirka ah qolooyinkan argagixisada ah ay ku xalaaleysteen dhiigga shacabkeenna ee muslimiinta ee Soomaaliyeed ay ku xalaaleysteen ama ay burburiyaan dunyadeenna ay burburiyaan taas waa mid waxay ay cadow ku yihiin waxyaabaha caqabadaha dalkeenna haysata waxaa kaloo ka mid ah oo aan wada ognahay qabyaaladda oo dhowr jeer lagu soo celceliyo iyo waxa aan u naqaano awood qaybsiga oo runtii dee markii laga hadlayo dowlad wanaag marka laga hadlayo meelay ka soo geli karto in qabiil wax lagu qaybsado ma garanayo meesha ka soo geli karto meel ay ka soo geli karto qarannimo iyo qabiil ama qabyaalad ma garanayo annagoo doonayna inaan caalamka la tartanno oo dalkeenna runtii uu noqdo wadamada ugu wanaagsan haddii aan awood qaybsigeena uu ku salaysan yahay sida ay tahay waxay la tahay waa soo aragnay 18 sano siday wax ahaayeen haddana haddii aan laga gudbin waxay la tahay waxaan gelaynaa muddadaasi muddo ka dheer oo tiya yaan gelaynaa waxaa la sheegay dhibaatooyinkaan qabno waxa weeye dhaqan xumo siyaasiyiinta ah ama siyaasadeed oo runtii aan la garanaynin qofkan siyaasiga waxa uu u yaqaano mucaarad iyo waxa loo yaqaano dumin mucaaradku waa wanaagsan yahay waa wax wanaagsan in lagu kala fikra duwanaado qof walba ra'yigiisu soo jeediyo uu ka hadlo program iyo agenda uuna sheego solution xalkiina uu ku daro uu yiraahdo مثلا dowladdu programyadaasi way ku khaldan tahay waxa weeye solution xalkuna waa 1 iyo 2 iyo 3 taasi
ma aha mucaarad ma aha waa qof doonaya oo constructive ah oo doonaya inuu dowladnimada maxaan ku rahaa gacan ka geysto dhismaheeda laakiin dumin yaa jirta markii laga hadlaayo dowladnimadoo dhan in geedka jirida loo gooyo oo loo diido xasilooni loo diido oo la bilaabo waxyaabaha aan naqaano oo qallaaso siyaasadeed iyo khilaafaad oo laga hadlo dowladoo dhan in la bedelo oo loo tago beesha caalamka lagu dacweeyo taasi waxa weeye waa dumin weeye ma aha mucaarad ma aha iyada naftigeeda waa caqabadaha na haysta waxaana haysta faragelin shisheeye oo runtii muddooyinkii dowladnimadii naga burburtay kadib caado noqotay bacdamaa aan noqonnay maxaan ku raahdaa week aan noqonnay ama aan tabadarnaanay in cid walba isku daydo wixii ay ka heli karto ama saameyn ama dhaqaale ama dana kale inay soomaaliya faragashato taasna haddii xitaa ay ku heshiin lahayn soomaaliya inay istaagto waxba ma ahaateene iyaga dhexdooda isu diidaya maxaa yeelay mid walba wuxuu rabaa saameyn ka badan kan kale inuu lahaado iyo annagoo u fuudeennay oo dadkeenu inta badan ay aamineen haddii beesha caalamku aysan garab taagnayn inaysan dhaqaaqi karin taasna waxay keentay in dad badan ay isdhiibaan oo laisku dhiibo shisheeye laisku dhiibo burburka institutionska dowladda haddaad aragtaan dowlad xoog leh dowladda xoogga leh waxay haystaa institutions hay-adaha dowladda oo xoog leh oo shaqeeya ayay haysataa oo dadka ka shaqeeya ay maxaan ku raahdaa lagu shaqaalaysiiyo aqoonta iyo kartida ay leeyihiin laakiin heebta ay leeyihiin aysan meelna ka soo gelin ilaa annaga hadda waxaan ku qaybsanaa waa 4.5 iyo awood qaybsi qabiilaan ku qaybsanaa laakiin haddii aan doonayno institutions inuu dib noogu dhismo waxaa la rabaa laba qof oo walaalo ah haddii ay wax tari karaan qarnimada iyo dowladnimadeenna in garab lagu siiyo laguna taageero laakiin haddii la yidhaahdo ha lagu bedelo si maxaan ku rahdaa awood qaybsigii sidii ay la rabay ama sidii ay ahayd in laga dhigo waxa weeye burburka institutionskeenu way ku jirayaan laga soo bilaabo ciidanka iyo civiliankaba ciidanka iyo civilianka labadaba waxaa intaas ugu daran dhaqaale xumo baahsan yaa dowladnimadana haysata wax kalena ma aha aruurintii la aruurinayay canshuuraadkii yaan sidii la rabay ahayn maxaa yeelay dadkeenu dowladnimadu waxaa laga yaabaa intooda badan inaysan fahamsanayn inay aqoontooda ku yartahay wax dowladnimo tahay oo dowladnimo loo arko wax qof leeyahay shaksi ah laakiin aan loo arag wax ummad oo dhan u dhaxaysa oo qof walba uu wax ku darsado hadduu yahay qofku shacab inuu ku darsado maxaan ku idhahdaa dhaqaalihiisa iyo canshuurtiisa qof hadduu aqoon-yahan yahay aqoontiisa uu ku darsado qof walba waxa uu isagu karaankiisu way tahay inuu ku darsado oo weliba qofku u shaqeeya dowladda naftigeeda inuu ku darsado inuu daacad u ahaado shaqada uu hayo uusan ka dhigin wax isaga uu leeyahay caqabadahaas iyo kuwo ka badan ayaa runtii dowladnimadana haysta sida keliya looga hortegi karaa ama looga bixi karana waxay tahay annagoo ka shaqeyno dowlad wanaag oo aasaas u ah daacadnimo iyo sida diinteena noo sheegayso ammaanada ummaddu ay u dhiibatay mas-uuliyiinta inay u hayaan cadaaladna ay ku maamulaan taasi waa waxaa la faray qofka mas-uulka ah taas yaa waxaa la rabaa inay u noqoto aasaas u noqoto dowladnimadaasi waxaa lagu ilaalin karaa waxa weeye ciidan weyn haddaadan ciidan lahayn ma noqon kartid state qaran ma noqon kartid ciidankaasi waa inuu awood u leeyahay dalka inuu difaaco haddii ay tahay cadow shisheeye iyo cadow gudaba ciidamadaas waxaa laga rabaa inay ilaaliyaan amniga iyo nidaamka iyo kala dambeynta iyo xasiloonida inay ilaaliyaan haddii dalku uusan ciidan lahayn ama ciidankiisu u kala qaybsan yahay siyaabaha aan sheegay oo hore dalkaasi ma noqonayo dal istaagan
oo runtii la tartami kara ama la jaan qaadi kara caalamka intiisa kale tan ugu muhiimsan waa culummada tan ugu muhiimsan waa culummada maxaa yeelay culummadu waa indhaha bulshada weyn waa culummadu waa dadka keliya ay shacabkeenu ku midaysan yihiin inay dhegaystaan markii culummadu ay taageerto dowladdeeda oo caqabadahan aan sheegay ay qayb ka noqoto sidii caqabadahan maxaan ku raha looga hortagi lahaa ama wax looga qaban lahaa waxaan aaminsanahay boqolkiiba 50 dhibaatada Soomaaliya inay yaraan karto yaan aaminsanahay maxaa yeelay culummadu waxa weeye maalin walbaba dee waxay ka hadlaan waxa xaqa ah waxa wanaagsan ay ka hadlaan marka waxa wanaagsan oo xaqa ah ay ka hadlaan haddii ay ku apply gareeyaan dowladnimada iyo shacabkaas inay ahaadaan shacab ka dambeeya madaxdoodana ay ku amraan ama ay kula dardaarmaan sida aan sheegay inay ka shaqeeyaan wax wanaagsan iyo maslaxadda ummadooda ay ka qayb galaan sidaad sheegteen arrimaha amniga oo qolooyinkan dhibka wada oo runtii argagixisada ah oo xagjirka ah inay bannaanka u soo saaraan oo ay la hadlaan oo ay kala hadlaan sidii dad kalaysan ugu biirin kuwa ku jirana ay uga soo celiyaan intaas kaliya maaha haddii xitaa suuragal tahay in aad ka wada shaqaysaan dib u heshiisiinta dowladda iyo iyaga waxa weeye waa door waa kaalin culammada Soomaaliyeed u furan maxaa yeelay kuwaasi hadday khaldameen oo diinta si khaldan u fasireen haddaad tustaan maxaan ku raahdaa iftiinka tustaan oo aad xaqa tustaan waxaan aaminsanahay shacabkana aad gaartaan in kuwaasi awooddoodu ay yaraanayso 11 sano yaa 11 sano la marayaa hadda dalkan intuu dagaal ku jiro dagaalkaas uu yahay dagaal xag jireed dagaal argagixiso ah waxaa soo maray 4 maamul oo anigu ilaa intee bay sii soconaysaa marka waa baaba'een iyaguna annagana waana baabi'iyeen ilaa intee yaan rabnaa inaan gaarno waxa baaba'ayana waa ummad Soomaaliyeed weeye waxa iyaga ka baaba'aya waa wiilasheenii waxa ay baabi'inayaana waa wiilasheenii iyo hooyooyinkeenii iyo carruurteenii iyo dadkeenii haldoorka ahaa yaan u faa'iideynay marka yay u faa'iideeyeen waxa weeye ilaahay ha noo soo hadeeyo ilaahay ha noo soo celiyo idinkuna inaad kaalintaas qaadataan oo aad la dardaarantaan markaad midowdaan waana midaysantihiin ilaahayna ha idin sii mideeyo waxaan aaminsanahay inay soo noqon doonaan waqti ahaato aysan sugin ilaa iyaguna ay tirtirmaan annaguna dhibaato badan ay noo geystaan ummado kale iyo shisheeye kalena aysan naga faa'iidaysan culummadu doorkoodu waa cad yahay doorkoodu waa saan sheegay waa indhihii ummadda Soomaaliyeed iyo indhaha guud ahaan muslimiinta caalamka in aad si sax ah oo wanaagsan oo runtii nidaamsan aan u wada shaqeyno cadowgaas na wada haysta oo cadowgaasna na wada dhibaya oo dhibkan ugu hayana aan isku meel uga soo istaagno tan kale waxa weeye caqabadahan sheegay looga hortagi karo waa shacabka Soomaaliyeed iyo culimmadooda iyo dowladooda oo wada shaqeyn leh oo wada shaqeynaya haddii intaas aan isla helno waxaan aaminsanahay oo aad ku guulaysataan ama aad si xoog uga shaqaysaan wacyigelinta iyo kor u qaadista wacyiga shacabka Soomaaliyeed oo aad ku wacyigelisaan in nabaddu ay wanaagsan tahay nabadduna maxaan ku rahaa keenisteedu ay tahay mas-uuliyad wadareed dowladdana lagu taageero gacan lagu siiyo waxaan aaminsanahay inay nabadda Soomaaliya ay aad iyo aad isu dhawaanayso waxa kale oo iyagana qayb weyn ka qaadan kara ganacsatada oo ilaahay xoolihii siiyey xoolahaas inay ku bixiyaan sidii dalkan uu nabad uu noqon lahaa sidii dowladdu u istaagi lahayd sidii dowladdu ay u haysan lahayd dhaqaale ay maxaan ku raahdaa howlaha amniga iyo howlaha adeega bulshada ay ku fuliso aysan dowladda aadin dad shisheeye oo aysan ka raadsan dhaqaale aysan ka raadsan marka iyada laftigeeda waxa weeye waa door ama kaalin culummadu
ay runtii qaadan karto shacabkana ay kala hadasho inay dowladdan iyagaa iskale oo dowladdu waa shacabkii weeye inay bixiyaan kow nabadgelyo kala shaqeeyaan canshuurtana bixiyaan ganacsatada saasoo kale lagu dhiirigeliyo inay qayb ka qaataan inay bixiyaan canshuuraha si dowladdaasi ay u qaadato mas-uuliyaddeeda oo ah arrimaha adeega iyo wixii la mid ah shirweynahan waxaan rajaynayaa insha allah inuu noqdo shirweyne taxana ah oo socda macdama uu yahay maanta kii ugu horreeyey in sanadla uu noqdo sanad walba aan qabanno oo weliba marka ugu dambaysa insha allah aan gaarno inaan isbartibada ku qabanno oo ummadda soomaaliyeed kulli aan ku casilno annagoo hal ah annagoo mid ah guud ahaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan hadalkaygu intaasu ku egyahay wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu shirku waa noo furaya taa laga ahaada